marka waxaa dhacdada kahor maamaba aad isbitaalkii baa loo qaado waa ay xanuunsaneyd wiilkeedii bayna la joogtay isbitaalkii la geeyey maamadii markii xanuunkeedii sii darnaaday wiilkii waa la soo waxaa la yidhi warheedhe hooyadaa waa xanuunsantay kaarbal imaaw kasoo gaar markaas isbitaalka imaaday markaas hooyadiisa markuu arko xanuunsan meeshii buu la jooga waxay tiri hooyo waxbaan kuu sheegayaa warkayga dhegeyso si fiican warkayga u dhegeyso hayuu yiri hooyo markaas waxay ku tiri hooyo guriga aan jiifo ma xasuusataa haa waxay tiri markaa ku noqotahay farinjeer oo raashin fiicanna geli meesha dhig mar waxadna ku xir markaas wuxuu aad markaas wuxuu dhahay wiilkii oo hooyo markaad isbitaalka imaatay maad ii sheegaysaa markii horeba maxaadan iigu sheegin markaas waxay tiri hooyo intaan meesha joogay gaajana waa igu dishay qabowna yacni kuleelna waa igu dilay marka waxaan ka baqayaa tiri beri ka maal inay ilmahaada adna meesha ku keenaan ee cunto la-aan iyo kuleyl ay kugu dilaan ee haddeertaan sii dhigo waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiran